In the United States alone, an estimated 10,000 people die every year waiting for a transplant. Dhakhaatiirta ayaa sheegtay in ninkan rajada kaliya ee naftiisa lagu badbaadin karo ayaa ahayd in doofaarka wadnihiisa lagu talaalo si uu dunida ugu sii noolaado. laakiin dhakhaatiirta ayaa go'aan ka gaartay markii uu bukaanka xaaladiisa ay aad u liidatay. Assalaamu calaykum. David Bennett oo ah qofkii ugu horeeyay lagu beero qalbi doofaar sida aan kaga soo hadalnay muuqaal baahinay 2 bilood ka hor. waxaa la sheegay David Bennett oo lagu talaalay wadno doofaar inuu dhintay 2 bilood ka bacdi. dhakhaatiirta cisbitaalka oo qaliinka sameysay ayaa ku dhawaaqay inuu David geeriyooday maalintii Talaadada la soo dhaafay kuna dhintay cisbitaal ku yaala Maryland ee dalka Mareykanka. waxa ayna sheegeen dhakhaatiirtu sababta dhabta ah ee dhimashada. inta badan waxaa la sheegaa dadka lagu talaalo wadnaha xayawaanada in uusan cimrigooda dheeraanin. waxaa jiray nin lagu magacaabo Tony Husman iyo nin kale oo Ingiriis ah. waxay noolaayeen 30 sano iyo wax ka badan. waxay dhigeen rikoodh ah inay yihiin labadii qof oo ugu dheeraa inay noolaadaan. sidoo kale arrinkan wuxuu muujinayaa in dadka wadnaha lagu talaalo in uusan cimrigooda dheeraan. haddaba intaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena. tan iyo muuqaalkiisa xiganta ku kulmi doono waxaan igaga tagayaa sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.